السلام عليكم وسمسم حسن وإذن لكم سؤال هذا قيب كل حاد تاريخ شيخة deegaan kastaba duruufaha si qalafsanaa waxay caruurtii walaalaha ahayd ku kalifeen inuu mid walba u dhaqaaqo halkii uu dantiisa u arko taasoo sheekh Isxaaq iyo wiil ka yar oo ay walaalayihiin oo kaliya u guureen magaalada lagu magacaabo Al-Sharaf oo ku taala gobolka Saba ee dalka Yemen xilligaasi uu sheekh Isxaaq u soo guuray magaalada Al-Sharaf ee gobolka Saba waxay da'diisu ahayd 22 sano wuxuuna ahaa wiil dhalinyaro ah oo aan weli guursan hase ahaatee ilaa yaraantiisii lagu soo barbaariyay barashada aqoonta diinta Islaamka muddo yar kadib markii uu la qabsaday deegaanka cusub ee Saba ee uu soo degay wuxuu ka bilaabay duruus kala duwan oo diinta Islaamka ku saabsan waayo wuxuu ahaa wiil ilaa caruurnimadiisii ay awowgii iyo aabihiiba ku soo barbaariyeen asluub iyo aqoonta diinta Islaamka oo uu noqotay xirfad si mug leh ugu daadagtay dhiigiisa dhowr arrimood oo kale ayaa hawlihiisan u sii fududeeyay ugu horeyn waa dhinaca afka uu wax ku dhigayay oo af Carabi ahaa isla afka Carabigana sideen hore u sheegnay wadanka Yemen ba laga hadlayay oo aanu wax dhibaato kala kulmin talabaad waxaa dadweynaha magaaladaasi Al-Sharaf ku noolaa oo si weyn u qadarin jireen dadka albaytka ee ah Xasan iyo Xuseen ku abtirsada arrimahaasi oo idil waxay sheekh Isxaaq u suurta galiyeen inuu magaaladaasi ku yeesho magac aad u weyn inkastoo ay da'diisu aad u yarayd xilligaasi aynu taariikhdiisa ku guda jirno waxaa gobolka Saba ee dalka Yemen ka talin jiray suldaanada reer Al-Xaqaar waxaana sanadkaasi u soo degay sheekh Isxaaq magaaladaasi ka taliyay suldaan Darcaan oo ku caan ahaa qadarinta culimada diinta Islaamka dhigaya muddo yar kadib waxaa suldaan Darcaan soo gaaray hadal hayntii magaaladaasi ee sheekha yar ee dhalinyarada ah ee sida hagar la'aanta ah u dhigaya diinta Islaamka gaar ahaan cilmiyada Quraanka waxa kale oo markiiba magaalada wada gaadhay in sheekhan dhalinyarada ahi uu yahay nin sayid ah oo ka mid ah tafiirtii Sayid Xuseen kana soo cararay xasuuqii lagu hayay saadada iyo ashraafta ku abtirsata Xasan iyo Xuseen carabkii dadweynaha magaaladu aad u hadal hayeen ayaa suldaankii ku kaliftay inuu u yeedho sheekh Isxaaq markii ay ku kulmeen qasriga madaxtooyada ayuu suldaankii la yaabay asluubtiisii iyo heerka aqoontiisa diineed gaadhsiisan tahay waxa kale oo uu ogaaday inuu sheekh Isxaaq yahay dhalinyaro aan weli guursan wuxuuna go'aansaday suldaankii inuu sheekh Isxaaq u guuriyo gabadh uu dhalay markii uu suldaanku u soo bandhigay arrintaasi markiiba sheekh Isxaaq uu ka gudoomay gabadhaasi la siiyay wuxuuna suldaan Xuseen bin Darcaan ahaa suldaan si xoogan u sharfa una qadariya culimada iyo dadka aalbaytka ee Xasan iyo Xuseen ku abtirsada markii uu sheekh Isxaaq ka aqbalay inuu guursado gabadhiisa uu siiyay ayuu suldaan Xuseen sameeyay munaasabad si weyn loo soo agaasimay oo ku saabsan xafladda guurka sheekh Isxaaq iyo gabadhiisa dadweynihii magaalada iyo deegaanka ku dhow oo si weyn uga soo qayb galay xafladaasi guurka ayaa isla marhaantaasi ugu deeqay caruuska hadiyado iyo hanti
aad u fara badan, taasi oo ka mid ahayd curfiga lagu yaqaanay deegaankaasi guurku ka dhacay.